wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa Kalamaane oo duceeyay allay leedahay yaahu areewana fafadhiya hayehe miyaad fafadhidiina ee waramahe war annaga nabad weeye ma dabeecadaada sidaani mise waa nala dirirsantaaniyo ilaahay ha ku doorsho dad baa mooda habaar ducana waabay noqotaa war ku waramayniyow waad qallafsan tahay waxaan maqli jiray dhadhan shaawaalan dhargaana ka daran madaxweyne xasan sheekh madaxweynihii hore meel qof caadi oo dhaan wataa ka xishoon lahaa buu fariistay xisbi baan guddoomiye la iigu doortuu yidhi weliba 6 bilood oo ku meel gaara kaliya madaxweyne Soomaaliyeed nin soo maray inuu xisbi siyaasadeed 6 bilood oo ku meel gaara guddoomiye u noqdo waa igala qiimo weyn aniga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga DPDU ahna xubin ka tirsan baarlamaanka xildhibaan xasan sheekh maxamuud intaas jagoodinka ka badan oo uu qabalahay xayta war madaxweyne xasan sheekh guddoomiye xisbi haba noqdo ma xume xisbigiiya lagu haystaa Cabdullaahi Shaaxsan wuxuu yiri magacaana iskale xisbigeygaana la yiraa hadda ka horowna ugu xiray xasan sheekh asagoo madaxweyne marka maanta inuu magacaygii qaato ma aqbalayo maxkamadaana la tagaya warnimayow xasan sheekh xisbiyada midoobay ee guddoomiyaha u yahay waxa ka mid ah xisbigii daljir hadda ka horna doorashadiisii ayay ballanka uga baxeen marka sidee mar dambe la isku aaminaya war taas ma ilaahay walaagi tabi ku tab walaagi kooyow suga leere war ma ahana mahmaayada habuurlaabin wax tagay tigsimaad mala weey wax joogana argaagax ma galaan aryaa war waxa la yiri aanada dabadooda la qabtaa warnimayow nimanaan is aaminsanayn oo hadda ka hor isqayaamay haddana wax isku qabanaan loogeyn sidee masiirka ummadda loogu aamini karaa xooyaha masiirku ma xukunka la isla qabaa warnimayow waxaan idin weydiinayaa siyaasiyiinta midoobay ma kuwa xanaaqsan baa mise kuwa faraxsan war kuwaasi waa kuwa dhaxdhaxaada oon dhanna raacsanay war xisbigii wada jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur xisbiyadii midooba ma ka mid yahay mise waa ka maqan yahay war xisbi mar hore ka gudub leeyahay hukuumadda hal yente marohay war beenta ka daa dadka soo bees waa elkama mid ahayna barotolyan buu ahaa yow heella baratamayay war sheekh sharaf xisbiyada kuma biirin waa ka madax banaan yahay warniyo Cabdalla Deero saqalaw naxariisto mar hore ayuu dhintay war guddoomiyaha xisbiga talada haya ee Soomaaliland waa Muuse Biixi Cabdi xasan Sheekh Naadir lama mudoobinba maygaas ba arkay aryaada Muuse Suudiya Cabdi qaybdid aqalka sare ka tirsan yihiin beentan iska dhaaf war farwalo madaxweynaha hore ee Puntland war madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe xisbi Islaam buu ka tirsanaa jiray war aamina mad mursal musharaxiinta wawiina koonfur galbeed ka tirsanta war Yuusuf Baadiyo nin liiraado musharax koonfur galbeed waaye ninkii iska dhigay ra'iisul wasaare Khayre iyo Kim Jong Un ka kuuriyada waqooyi baawur buu intuu isku xiray oo dhalinyaro yiraahday dhinac orda ariya Khayre abadkii baadiye ma tag ee baadiye iyo Kim Jong Un kala sik warada wasiirkeygii maaliyadda Soomaaliland wuxuu la soo hadlay wasiirkan maaliyadda qoladan jaarka nahay ee Beyle waxaanu ku yiri war maalmahanba adigu albaabadu ay idin furan yihiin waa bal annaga wuxuu la soo gaargaashay duulduul la ahaatee warniyo Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayuu ah ninkii yiraahday Soomaaliya kama go'ayna waan kala baxaynaa war ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi wuxuu yiri waxa la gaaray xilligii madaxweyne Farmaajo oo Hargeysa ka dagi lahaa war miyuu noqod iska hormariyay warnimayo hormaysaan maanta Talyaaniga la qarxiyay waxaan noogu jira ununka Talyaani la qarxiyay war Roomili ka qarxiyay bismillaahno war Muqdisho ka dhacay qaraxa warkan dhex gelinine war waxay lahaayeen ana tagay meesha non sono non morto noi ancora viva ilahaayeen ayay kaari juuja maalinka ka bari maxaad u dheen adigana testatiiba dal ordino istatito bicomica nationale xaan loo dhihin war maxaa loo dhihi waayay meelia morto vivo war basiinka galdamay dumaana ate oo jaamay wala erle fadaayna manta adigu dumaalkan iska dhigtay adigu ay wala Talyaaniga taqeen warnimo ayaantan baashi bajaaj loo oran jiray balaaya ku soo baxday hadda burcadii magaalada dhibaatada ku haysay iyo tuugadii baa bilaabay inay dadka ku afduubaan kuna dhacaan warada bajaajka Soomaaliland waxa looga yaqaan saqajaamad
wariya bajaajkiisan sheegasan baalgamuundo badana derbiya ku kiiday gefka hal iska dhaafoy walba kuulay cali banjareeyu ekeedo khayrka koramahayn anigu weligaa korin hadalkii bataa waxaa la yidhi haan ma buuxiye bajaajka reero badan ayaa biisha dhallinyaro badanna shaqay u tahay ha laga daayo dulmiga ee fidnada ay dadka kula meeraysanayo shirqoolka aryaadhaha wariyihii tooxow la dhahaya saxaafadda wariyaha xaq dhowr ee ayaantan kula mashquulsanaayeen xala saqdi dhexaa la deeyaa la yidhi war maxaa loo soo daayey kursigaabuu xagga hore kaga fadhiyey war baroortan waalmatara bilaahi faylaminin la haytan baroortanku waa boolaha ka dhiyaylanka markii hore horta maxaa loo xiray hala soo daaya ma xume adeer wuxuu qaydkeenni maahane waa nin maxbuusa horta markii hore maxaa loo xiray war aliyawshan sana ka hor la dili maylan dili leyroogasana lankoob la hadhiya alxamdulillah ma ertaana war gudoomiyihii degmada axmed weyne cumar shariif jaag wuxuu yidhi unuka waa dulqaadahoona madaxweyne farmaajaanka warsugoona wallaahi bilaahi tallaahi banaadir haddii xaqaynan ka heli wayno wallahi waxba arkaysiin almiino alla yareeyo miyuu ilaabay maamulka degmada axmed weyne waxay yidhaahdeen ciidan badanaan u baahanna war ma koodku ka yidhi mise afarridoodka war taliyihii booliska bashiir ameerika wuxuu yidhi kawaanka malaaga in la xidho aniga amruu yidhi sababtooda dhiigga ka soo bax kawaanka libaaxaa soo raacay markaasuu dadka eber ka dhigaya waa ii kow libaax kawaan jooga wareedha agoontii booliiska ee jenaraal cali gaab hayey muxuu ka yidhi taliyaha booliisku kuwaas aabbayaashood dagaalkii beelahay ku dhinteenou ka yidhi war dagaalkii beelaha boolis ma jirina beenta iska daa war taliyuhu beelu u yaqaanaa waxa dad beledka jooga ma beeshaan yaa mugaxaana loonnaba war libaaxbad kama soo baxo dadna bannaanka kuma cuno libaaxbadeed ma kawaankaa lagu xalaalaysanaya waxaas muga ma beeshaan yaa xalaalaysata haddana dad kaleba idinkaa dilay idinkaa laayey war adaadiga iga tag kalaan kurtaadu ha koorise